Wiilkani waxaa lagu magacaabaa Ismaalore. Waxa uu ahaa wiil aad iyo aad dalxiiska u jecel. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu soo aaday dalxiiskiisa. Waxa uuna soo qaatay mootadiisa laba lugood ah. Waxa uuna soo marhayaa dhul iyo kaymo aad u cabsi badan, midaasoo mararka qaar dadka qaar ku haysa cabsida iyo argagax aad u badan. Meeshaas waxaa ku noolay dad qalasho. Meeshaas iyadoo iska fadhida ayaa waxaa soo gaaray codka mootada oo zaid u xawaaraynhayo. Ayadaanina meeshaan ayay iska fadhidaa mar walibana waxa ay la yaaban tahay cidda caawa soo luntay ee kusoo mashquulsan ayada ama moodkeeda soo geli doonta cawada ayay la yaaban tahay. Meeshaas ayay iska fadhidaa. Waxay fadhidaba waagi ayaa ku baryay. Meeshaas ayay taagan tahay weliba waxay sugaysaa mootadan soo shanqaraysa iyo cidda wada doonto. Meeshaasina waxaa kula kulmay wiilkii. Meeshaas ayay kusoo cuntay wiilkii Ismaalore ahaa isagoo oo yaabanayay meeshii kusoo kala fiiqatay. Meeshii ayay iyadana soo tagtay waana yaaban tahay maadaama uu caawa wax u soo guda galay. Dhinaca kale iyada farxadeeda iyo jawigeeda ayaa ahaa mid aad iyo aad u qurux badan maadaama ay cawada kusoo heshay cod fursad leh. Meeshaas ayay mootadii laba lugood ayay ka soo qaadatay. Waxa ayna soo qaadaysaa wadadii iyadoo aad u faraxsan weliba maadaama ay isku heshay mooto iyo weliba cunto iyo hilib aad u macaan. Meeshii ayay mar waliba la yaaban tahay nasiibkeeda cawada ay kusoo aaday iyo sida ay mootadan u haysatay iyo wiilkii ay kusoo tagtay. Mar walibana waxa ay soo qaadaysaa wadadii iyadoo faraxsan oo weliba zaid u faraxsan. Dhinaca kale meeshaas waxaa wadada gudaheeda taagan wiilkii hadaytay soo cunaysay. Hooyadii ayaa taagan Ismaalore ahaa. Hooyadii way yaaban tahay mar walibana waxa ay ka fikiraysaa wiilkeedii iyo meesha uu aaday iyo waxyaabaha wiilkeeda oo intaasoo dhan uu ku maqan yahay maadaama uu ahaa wiil dalxiis aad iyo aad u jecel. Way ogtahay inuu dalxiis ku maqan yahay. Dhinaca kale dad qalashadii ayaa wadadii kusoo jirto maadaama ay wiilkiina soo cuntay mootadiina soo qaadatay. Meeshaas ayay iska soo baashaalaysaa iyadoo faraxsan. Mar walibana way faraxsan tahay. Waxa ayna wadadii kusoo qaadaysaa si kalsooni iyo ku dheehan tahay iyo farxad walibana. Dhinaca kale waxa ay soo gaadhay waxay soo socotaba maamadii wiilka hooyadii ayay soo gaadhay. Bajaajta ayayna ku dhufatay iyadiina sidoo kaleeto way cuntay. Meeshaas ayay markan dul taagan tahay iyadoo weliba qoslayso oo isla cawada Ilaahay ayaa wax walba ku siinaya ayay leedahay. Meeshaas ayay iska taagan tahay wayna qoslaysaa mar walibana waxay ka fikiraysaa cawada iyo nasiibkeeda meesha uu siduu u saacideynaya. Mar walibana way ku qariyaysaa. Mar walibana way faraxsan tahay. Waxa ayna taagan tahay maxaa cawada xaggee dhib ka jirtaa. Dhinaca kale mootadii ayay soo qaadatay. Waxa ayna soo qaadatay wadadii waxaana meeshaas kusoo baxday qoraxdii. Meel ayay iska fadhiisatay. Mar walibana waxa ay ka walwalaysaa. Mar walibana waxa ay ku faraxsan tahay cawada iyo nasiibkeeda meesha uu saacideynaya. Mar walibana waxayna ka fikiraysaa hadda wax kale oo ay samayn doonto. Waxa ayna heshay fursad ay hadda dad kale ku gaadi doonto. Waxa ay soo qaadatay maro weyn oo calal ah. Waxa ayna ku xidhatay wajiga maadaama uu wajigeeda aad iyo aad u cabsi badan yahay haddii la fiiriyo. Meeshaasina waxa taagnaa nin kaas oo wadada gudaheeda iska taagnaa oo sugayay mooto ama wax uu raaco sugayay. Ayadii ayaa meeshan ka soo dhow. Waxa ayna la soo istaagtay ninkii. Waxa ayna ku tiri maxaa meeshan ku taagay xilligan. Asagana sidoo kale waxa uu taagan yahay waxa aan sugayay mooto ama wax qof aan raaca ayaan sugayay. Mar walibana ayadii ayuu fiirinayaa wuuna la yaaban yahay asagoo shakisan ayuuna wuxuu ku leeyahay adigu maxaad ahayd ayuu ku yiri. Dhinaca kale ayadii ayaa waxa ay taagan tahay aniga meeshaan waxaan ahay gabar shaqaysato oo mootada ku shaqaysata ee ma ku sii qaada haddii aad diyaar tahay. Dhinaca kale wiilkii wuu yaaban yahay wuuna mar qaar wuu yaabaa mar qaarna wuu ku farxaa maadaama uu mooto bajaaj kula kulmay. Dhinaca kale ayadii waxay ku leedahay war walaal hadda baxayso nabada ayay ku leedahay haddii kaleeto iska joog. Mootadii ayay soo saartay wayna faraxsan tahay. Mar walibana waxa ay la yaaban tahay haddana qofkan galata ee bajaaj u saaran iyo meesha ay geysan doonto iyo waxaas ayay kasii fikiraysaa. Dhinaca kale asagii su'aalo ayuu weydiinayaa maadaama qofka marka uu bajaaj u saaran yahay inta badan uu su'aalo iska sheekaystaan. Asagii su'aalo caadi ayuu weydiinayaa. Wuxuu ku leeyahay xageed ka imaatay maxaad xilligan u wareegaysaa ayuu ku leeyahay. ayadiina mar waliba indhaheeda ayaa zaid u guduud badnaa maadaama ay ahayd mid aad iyo aad u farxad badan uuna wadato qofkan meesha ay iyada ka fikiraysa ayay mar walibana kasii walwalaysay. Waxay soo wadaba waxa ay marayeen hadda laamiga gudihiisa. Waxa ayna mar waliba way ka fikiraysaa meesha ay geysan lahayd qofkan. Asagana sidoo kale dhinaca kale waxa uu weydiinayaa su'aalihiisa khaaska u ahaa asaga. Waxay soo socdaanba wadadii soo qaadaanba waxay keensatay xidh cabsi leh. Meeshaas ayay ku dishay asagina mootadii ayay gidisay. Asagana dhulka ayuu ku dhacay wayna kor taagan tahay wayna ku faraxsan tahay wayna ku qayliyaysaa. Mar walibana waxa ay taagan tahay alla nasiib badan iyo cawada waxa ay soo socotaba mootadii waxa ay keentay meel lagu hagaajiyo mootooyinka. Meeshaas ayayna kaga soo tagtay. Waxa ayna iyadu taagan tahay ama waxa ay ka wadataa fursad aad iyo aad u weyn ama waxyaabo iyada khaas u ah ayay ka wadatay. Meeshaasina waxaa joogay nin hagaajiyay inta badan mootooyinka. Mootadan yaa meesha keenay ayuu taagan yahay. mootadaani ciddi meesha keentay maba joogto. mootadiina meesha ayay taagan tahay. asigii mootada ayuu soo kaxeeyey. waxa uuna soo aaday banaanka. meeshaas meesha ayuu iska soo tegay. waxa uuna soo aaday banaanka. dhinaca kale dad qalashadii waxa ay taagan tahay waxa
ay ku sugaysaa meelaha xiriirka noocyadiisa ugu cabsida badan ama ugu xasaasiyan ay taagan tahay. Waxa ayna ku sugaysaa cid kale oo meeshan soo mari doonto ay ku tagto ayay rabtaa. Dhinaca kale wiilkii mootada daata soo qaatay ayaa meeshan soo maray, waxa ayna soo raacday. Asagii waxa uu la yaabay, waxa uuna taagan yahay maxaas lahayd, maxaana xilligan meeshan ka qabanaysa ayuu taagan yahay. ayadii ayuu mar waliba fiiriyaa, wuuna yaabanta iyadii dhinaca kale waxa ay ku leedahay waxaan ahay gabadh taas oo u socota meel xagga oo hore isii qaaday ku tiri hay ayuu dhahay. Mootadiisa ayuu soo saaray, waxa ayna qabsatay mootadii si waliba ayada ay iska dhigayso qof caadi ah. Mootadii u qabsatay, waxa ay mootadii socotaba mootadii ayay ka turtay wiilkii. Dhinaca kale asaga wiilkiina way soo cuntay, maadaama cawada nasiibkeeda aad iyo aad u fiican yahay. meeshaasi ayay ku soo cuntay wiilkiina. meeshaani ayay mootadeedii iska wadataa, mar walibana kolba mootadan cawada waxay ku soo cuntay waxyaabo fara badan. dhinaca kale meeshaani waxaa taagan laba duqay oo inta badan ayagana isweydiinayay su'aalo fara badan iyo maxaa meeshan ka dhacaya, mar waliba maxaa qof loo cunaya oo xaafada gudaheeda ka mid ah yaa cunayo iyo su'aalo noocaas ay isweydiinayaan. mid kale wadadan marar badan ayaa duqa kale ayaa wuxuu dhahay mid kale wadadan ayaa marar badan waxa lagu soo sheegay cabsiyaha noocyadooda kala duwan ee wadadan inay maxaan ku sameynaa ayuu leeyahay. mar waliba qof waliba oo la cunayo wadadan ay gudaheeda ayaa laga cunaa, wadadan maxaan ku sameyn karnaa ayuu leeyahay. mid walibana midka kale ayuu su'aalo weydiinaya, waxa ayna ka fikirayaan waxa ay kaga talageli lahaayeen meeshan iyo siyaabaha ay meeshan ama uga tagi lahaayeen ama wax uga qaban lahaayeen, maadaama uu inta badan ninka ragga uu ama meesha wax ka qabto ama iskaga tago. dhinaca kale dad qalashadii ayaa meeshaasi iska fadhido, wayna yaaban tahay. mar walibana waxa ay ka fikiraysaa yaa kale oo ku soo mari doona cawada, maadaama uu nasiibkeeda aad iyo aad u saacideynhayo. meeshaasi ayay iskaga fadhidaa geed, meeshaasi ayay iskaga fadhidaa dhagax. mar walibana waxay isweydiinaysaa su'aalo fara badan kuwaas oo ka mid ah alla cawada cid kale meeshan soo marto bajaajteeda ayay ka wadataa, iyadoo kama baqasno maadaama ay bajaaj iyo ka haysato iyo bajaaj ka wadato meesha rabta ayay aadaysaa. maba ka walwalsano maxaad heli doontaa iyo maxaa kula soo gudboonaan doonatoona. waxa ay soo socotaba meesha wadada gudaheeda waxay kula kulantay duq waayeel ah, taas oo u baahan in la qaado ama taas oo u baahan in ay qof ay hore u sii qaado u baahan. meesha ayay duqdii kula kulantay, waxayna ku tiri oday maxaa meeshan xilligan ku taagan ayay ku tiri, wayna ku qariyaysaa. mid kale kumana qariyayso oo ayada fursad ayay ka wadataa. duqdii ayaa waxay ku tiri waxaan ahay duq waayeel ah, mana socon karo, waxaan ka wataa u sheeday meeshaan ayaan iska taaganahay, haddii aad biliis hore isii qaad ayay ku tiri eedo. ayadii waxay ku tiri kuma sii qaadaya maadaama ay fursad ka haysato ama in la sii barbariyo ay zaad ugu baahan tahay, kuma sii qaadaya ayay ku tiri duqii waayeelka meeshaad iga joogay ku leedahay. duqdii waayeelka dhinaca kale ayaa ku qariyayso, waxay tiri habar yar meeshaan iga sii qaad, waa meel cidla ah, wax waliba ayaa ugu dhici kara ee meeshaan iga wad ayay ku leedahay.